gurigeeda kuma haysan farxad, hurdadii ayay weysay, xitaa raashinkii ayay ka go'day. waa gabar 19 sano jir ah, 3 sano ayuu sixirka guriga ugu jiray. Hoogaseegeeda iyo midka hooyadeed ayaa sixirka loogu duugay. gabadhan oo 3 sano sixirka guriga ugu jiray ayaa sheegtay inay sixireen 2 wiil oo horay jecel ugu dhaxeen jiray. sixirka ayaa loogu duugay meelaha ay iyadu u badan tahay sida suuliga, qolka jiifkeeda iyo geed timireed guriga dhexdiisa ka baxa. فرد مالي مالي سيارة ولا مايا سيارة لو سيارة ولا مايا مايا أو جرافة بيها مايا مايا وراك ما كمل يسوي كمراني كمل يسوي كمراني مو كنيسة مايا سير دم مو كنيسة مايا مو كنيسة سير دم ولا مايا مو سير كيا سير دم مايا إله بربور إله سير كلا وتلا قلي هو يدل قد إله بربور يا ربي بربور 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 sheekha cilaajka Daarul Quraan ee magaalada Jowhar Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo loo yaqaan Macallin Daadir ayaa maanta gabadhan 3 sano sixirka guriga ugu jiray ka daaweeyay, wuxuuna bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ugu baaqay inay Alle tala saartaan Quraanka Kariimkana isku daaweeyaan. gabadha saaki waxa la keenay xarunta Daarul Quraan ee ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan degmada Jowhar ee xaafadda Horseed waxay kaga taalaa Isnaay Piyaso. gabadha muddo 3 bira ay maraysaa oo la keenayay Quraanka aan saarinay alxamdulillah. maanta Ilaahay wuxuu na soo waafajiyay guriyihii sixirka loo geliyay iyada ay degneed guriga hooyadeed iyo guriga iyada laga qabayba in sixir aan ka soo saarno. Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa maada iska leh ina garasiiyay inaan soo baxno aan imaano. Ilaahay na waafajiyay sixirka in la soo saaro ayaa mahad leh. oo taani shay dadaalka aan soo bixinay ee aan u soo bixinay ummadan wax kala ma ahan si aan adduunyadeena iyo aakhiradeena Ilaahay ajir inooga siiyo ee ummadana ay ku caafimaadaan alxamdulillah. gabadhan waxaad arkaysaan hadda inay ku hayso gacanta waxaasi waa sixir. gurigan waa guriga hooyadeeda, waxa lagu sixrayna wax kala ma ahan ninkeedii iyada in la kala geeyo, hooyadeedii iyada in la kala geeyo. gurigeedan hooyada waxa laga soo bixiyay hal sixir oo gudaha qolka mid musqusha midkaasi hadda hayso waa geed weeyaan. insha Allah wax bal arka ummadda dhibaatadaas ku jiraan, dhibaatadaas waa lagu hayaa. sixiroolayaalka wax sixrayo ayaan fariin u dirayaa, war Ilaahay ka baqa. ummadda sixraysaan sixirka kala daaga, ummadda sixirka la daalinaysaan sixirka kala daaya ilaa ay naftu ay naga dhacdo. sidan baan idin daba taagnaynaa. suxaroy Ilaahay ka baqa, cadaabka Ilaahay baa mutaysanaysaan. ummadda masaakiinta ee iska danta yar banaanka ka mara ka leexda min mashriq iyo maghrib. sixiroolayaalka joogo ummadda ha ka leexdaano, sixroolaha ma liibaano. Ilaahay tabaaraka wa tacaala baa kitaabkiisa ku sheegay xaasidkana wuu dhib badan yahay, asigana waa la mid. hadduu Ilaahay rado insha Allah sixirkaan aad arkaysaan. waryaa mi maqlaysa waryaa sori waryaa sixirka dhaqso sixirka waryaa dhaqso dhaq waryaa. maxaa lagu sameeyay geedka maxaa lagu sameeyay sixirka muxuu yahay sixirkana muxuu yahay sixirka markii daashka aqayso inay ku dhimato ayaa lagu talagalay. sixir dambe imaanaysa waryaada malay imaanaysa sixir dambe maya wax sixir dambe ma jira guriga ku dambeeyo maya. soo raaga gacanta dhaqsada reex ku soo laabanaysan iga diji gacanta reex ku soo laabanaysan reex maalinta ma lagu siyaarkaya reex ka carar meesha dhaqso iyo soo dhawaaq qaba gabadha lagu siyaarkaya reex maya ya reex maya meeqay xanuunsatay gabadha 2 sano meeqa sano sixirkan guriga yaalay 3 sano alxamdulillah. ilaahay ma diiso waraa banaanka ka maro gabadha maqlaysa reex banaanka ka maro bismillaah allahu akbar.